ayaa isku diyaarinayay inay dhexdhexaadin ka sameeyaan dagaalka Laascaanood balse waxa soo farageliyay dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska oo iyaguna dhinacooda isku diyaarinayay inay xal u helaan xabadda Laascaanood ka dhacaysa daneeyayaasha labada dhinac ayaa ugu dambeyn isla qaatay in dawladda federaalka Itoobiya tahay takaliya ee hoos ugu degi karta xaaladda taagan waxayna u wakiisheen xal u helidda khilaafka dagaalka keenay toddobaadkii hore waxaa caasimadda jamhuuriyadda soo gaadhay guddida dhexdhexaadinta oo ka koobnaa hay'adaha amniga iyo diblomaasiyiin reer Itoobiya kulan saacada qaatay oo ay la qaateen xukuumadda madaxweyne Biixi waxay ka gudoomeen go'aanka dawladda iyagoo dhinacooda la wadaagay aragtidooda ku aadan xal u helidda khilaafka xogo hoose oo aan helay ayaa ay xaqiijiyeen dawladda iyo guddida dhexdhexaadinta ee ka socday dalka Itoobiya isla qaateen qodobo ay ka mid ahaayeen in Itoobiya noqoto dhexdhexaadiyaasha darafyada iska soo horjeeda in dawladdu dhinaceeda ku dhawaaqdo wada hadal iyo xabad joojin shuruud la'aan ah in ciidamada qaranku ku sugnaadaan xeryahooda oo aanay gudaha u gelin magaalada Laascaanood inta wada hadal ku socdo in Soomaaliland u ogolaato gurmad bini'aadantinimo cidii ka geysanaysa gobolka Sool dawladdu dhinaceeda waxay shardiya ka dhigtay in gudaha Laascaanood laga saaro dhammaan ciidamada ku jira iyo inaanay deegaanada kale ee Soomaalidu aanay soo faragelin karin xaaladdan ka taagan gudaha Soomaaliland loona wada hadlo si u dhaxaysa darafyo Soomaaliland ah oo iska soo horjeeda intaasi kadib waxay guddidii dhexdhexaadintu u duuleen magaalada Garowe oo ay kula kulmeen garaadadii ku sugnaa magaalada Laascaanood waxayna hordhigeen qodobo ay u arkayeen xalka nabadda isla markaasina ay ka mid ahaayeen inay aqbalaan wada hadallo bilaa shuruud ah inay dhinacooda ka hirgeliyaan xabad joojinta dawladda Soomaaliland ku dhawaaqday in ciidamada Puntland iyo kuwa qabaliga ah dhammaantood ka baxaan gobolka Sool in laga saaro ciidamada deegaanka ee hubaysan magaalada lana geeyo dhinaca durdurka ee koonfurta in garaadadu ka shaqeeyaan sidii loo xasilin lahaa gudaha magaalada kadib marka laga saaro kooxaha hubaysan in argagixisada ku jirta gudaha magaalada meel looga soo wada jeesto iyo in ciidamada kala duwan marka laga saaro magaalada cidii weerar geysata loo arkayo dambiilayaal garaadada dhinacooda waxay diidma ka keeneen inay Laascaanood joogto argagixiso balse kooxaha ergada ayaa hordhigay liiska 11 qof oo si rasmi ah loogu aqoonsan yahay argagixiso caalami ah oo ay sheegeen inay waqtigan ku sugan yihiin gudaha magaalada Laascaanood sidoo kale waxay aqbaleen inta badan qodobada balse waxay ku xidheen shuruuda in ciidamada Soomaaliland la geeyo oo taasoo guddida nabadda u sheegtay inaanay suurtagal ahayn ka hor wada hadal isla markaasna beesha caalamku doonayso inay sii socdaan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya xuduudihii Ingiriisku dhigayna waqtigan aanay ku habboonayn in la taabto taasina ay tahay sababta dawladda federaalka Soomaaliya aanay u soo faragelin xaaladda Laascaanood iyadoo ka fogaanaysa wixii burbur ku keeni kara dadaalada beesha caalamka ee wada hadal la midha inkastoo aanay labada dhinacaan isla qaadan goobaha lagu wada hadlayo balse waxay ka aqbaleen ergada Itoobiya nabad iyo wada hadal kadib kulankii garaadada Itoobiya waxa shirar kooxa isugu yimi kooxihii hurinaya colaadda oo uu oday u yahay madaxweynihii xukunka laga riday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna isla qaateen in Itoobiya ay isku haleynayeen dhabarka u jeedisay taas bedelkeedana sheekadii maamul gaar ah loo bedelo in wax lala yeesho Puntland loona sheego Itoobiya in deegaanadan lagu daro maamulka Puntland si meesha looga saaro kasimid ahaanshiyaha Soomaaliland ee deegaamadaasi aragtidan loo soo gudbiyay garaadada ayaa keentay inay ku kala qaybsamaan balse badidoodu waxay qaateen soo jeedinta ah in Puntland laga mid noqdo kooxaha dibad wareega ee dabka ku siishadaya xaaladda Laascaanood waxay isla dejiyeen 3 qodob in dadka deegaanka dhibaatadu ka taagan tahay iyo kuwa deegaanka bariga Sanaag iyo Badhan lagu daro Puntland garaadaduna hormuud u noqdaan taabagelinta qodobkaas inaanay suurtagal ahayn in kooxaha hubaysan laga saaro Laascaanood oo haddii taasi dhacdo wax ka yar maalin ay ku soo afjarayso Soomaaliland in kooxaha hubaysan la yiraahdo waa laga saaray magaalada balse loo bedelo ciidamo sita magaca booliis oo xasilinaya magaalada oo garaadadu dhahaan waxaan samaynaynaa ciidamo booliis ah oo ammaanka magaalada suga ugu dambeyn waxa muuqatay inay sii wiiqmayso colaadii Laascaanood waxaana soo oodantay rajooyin la qabay iyadoo ay meesha ka baxday isku hadlayn beesha caalamka iyo Itoobiya laga qabay Soomaaliland dhinaceeda waxay muujisay bisayl diblomaasiyadeed iyo waayo aragnimo keentay in beesha caalamku dhinaceeda ahaadaan kana soo horjeestaan qodobada buddiga u ahaa colaadda sida Soomaaliland ha ka baxda Sool iyo Soomaaliland ayaa duulaan wada kadib markii ay soo afjarantay maamul goboleed Soomaaliya hoostaga aragtida cusub ee Puntland Sool ha lagu daro waxay horseed u noqon kartaa in Soomaaliland qaado talaabooyin military oo gaadha Garowe
وتهاي هدبا waxa iminka khadka telefoonka igaga soo biiray dalka Australia Ibrahim Caydiid oo kamid ah aqoonyahanka reer Somaliland gaar ahaan dadka sida dowla Socday xogogaalkana waa xaaladda magaalada Laascaanood ugu horeyn Ibrahim soo dhawow aad baan Ali Mahdi ku salaamaya adiga iyo dadka kale dhageysan doonaba waana dhawahay Ibrahim iminka waa sidee xaaladda magaalada Laascaanood maxaad xoga ka haysaa oo aad la wadaagi kartaa bulshada xaaladda guud hadda soo kooba caliyow waa magaalo la isku dilay oo ciidamadii isku dilayna ay isku hor fadhiyaan wali xabad joojin aan lagu badan ku taagnayna lagu dhawaaqay labada dhanba dawaynta xaaladdu maxaad kala socotaa ergada dawladda Itoobiya ee la kulmay dawladda Somaliland iyo waliba garaadada kulamada ka kala dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe caliyow ergada madaxda saraakiisha dawladda Itoobiya ka timay federaalka ogaalkii waxaan ogahay in ay isku xiran yihiin dawladaha galbeedka especially Mareykanka oo ugu horeeya inay ka wakiilahaayeen ay la kulmeen dawladda Somaliland ayna ku dambeeyeen garaadada oo ay kula kulmeen Garowe ogaalkii waxay soo bandhigeen xogo lagu qanci karo oo sheegaya in kooxaha xaq jirka ah ee khatarta ku ah gobolka ah oo dhami inay ka dhex dagaalamayaan Laascaanood oo aan la dafiri karin xogtoodii iyo cadaymana ay soo hordhigeen ku qanciyeen sida awadeed amniga gobolka in la wada ilaashanayo oo aan suuragal ahayn in lagu daawado ciidamo xaq jira oo ka dagaalamo gobolka Laascaanoodna lagu hubayna ka dagaalamayaan ku ismuujiyay ee khudbadeeyay iyo qaar kale oo aan ismuujinba inay joogaan oo ka dhex dagaalamayaan waa lagu qanciyay ayaguna way ku qanceen oo way yaabeen ka bacdi waxa lagu qanciyay oo kale xabad joojinta Somaliland ba qaadatay inay iyaguna qaataan shuruud la'aan ciidamadii Somaliland fadhiyadoodii hore lagu celiyo tukaraq iyo gooja cadde iyo oo aanay magaalada Laascaanood soo galin dadkii lagu soo celiyo nabadda laga shaqeeyo wada hadal loo diyaar garoobo nimankaasi waxay soo bandhigeen oo ay tuseen garaadadii inay u aqoonsan yihiin dawlad iyo dadkeedii oo isdilay oo ay soo dhex raaceen dadyo kale iyo ciidamo kale oo kuwaadii aan sheegay ahay in la joojiyo xabadda wada hadal loo diyaar garoobo garaadada iyo kooxdii kale ee siyaasiyiinta ahayd ee dagaalkan soo xawilay ee ka soo shaqeeyay labaduba meesha kaliya ugu dambeysay ay filayeen ay taageero ka filayeen waxa ay dawladda Itoobiya siday uga heleen dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya taageero inay dawladda federaalka uga helaan bay filayeen arrintaas waxay noqotay mid ay candhuftooda dib u liqeen oo ay beenowday marka ogaalkay waxa lagu yiri xabadda joojiya wada hadal u diyaar garooba Ibrahim waxa muuqata inay sheekadii Laascaanood ku soo ururtay Puntland arintaas madaxweynihii hore laga adkaaday farmaajo garaadada iyo waliba gudida G21 ee inta badan aad ka hadashaa miyay ku wada socdaan in deegaanadaasi ay ku biiraan maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland sheekadii Laascaanood markii hore waxa la filayay dadkii arintan qorsheeyay ee siyaasiyiin iyo garaado laha waxay qorsheynayeen maamul gaar ah oo aan ahayn Somaliland iyo Puntland in ay noqoto deegaanada noqdaan oo dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh xukumo lagu bushkareeyo inay dhaqaale siiso oo ay aqbasho oo ay maamulkaas mid ay aqbasho u noqdo arrintaasi waxay noqotay mid aan suuro gali weyday sidoo kale waxa uu qorshaha labaad ahaa taageero laga filayay dawladda Itoobiya oo inay garab istaagto siyaasiyan iyo ciidan amaba ay noqoto meeshaasi meel marka dagaal ka dhaco ciidamo kale oo Afrikaana la keeno oo dhexdhexaad ah taasoo niyadda lagu hayay si lagu mujaxaabiyo Somaliland dawladnimadeeda tiina way suuro gali weydo Itoobiya waxay noqotay meel aan sidii la filayay ay ka waayeen optionka
u dambeeya ama qorshaha u dambeeya ee balaan biigooda wuxuu noqday in ay suuro geli weyday maamulkii ay suuro geli weyday ciidamadii ajnabiga la doonayay meesha in la keenay dowladda Itoobiya filayay in garab istaagto iyana meesha way ka baxday waxa kaliya ee labadii kooxood iska soo horjeeday Puntland iyo kooxdii kale farmaajo ee G21 ee wada socotay ee iska soo horjeeday waxa ay isku biir shubteen oo farmaajo lagu qanciyo kooxdiisii inay tanaasulaan iyagu sida kaliya Somaliland maanta lagu dagaalami kara ama lagu wax u yeeli karaan inay noqoto maamulka Puntland oo lagu biiro oo garaadadu ay yiraahdaan shacabkii annaga ka wakiila maadaama ka wakiil lahayna waxaanu garanay annaga shacabka iyagiba inaanu Puntland ka mid noqono maadaama Somaliland istilay oo aanu hadii alla ku roon yahay sinaba aanay noo xukumi doonin marka arinta imika ay isla gaareen ee qorshahoodii u dambeeyay isla gaareen waa inay Puntland ka mid noqdaan tay ku tashadeen ka mid noqoshaha Puntland qaar baa kaga duwan garaadada oo aan tagin Puntland iyo reeruhu marka marna waa reerka guud marna waa la kala baxay reeraha qaarna kuma qanacsana oo hadii maamulkii madaxa banaanay ay doonayeen la waayay Puntland iyo Somaliland inaanay kala dooranaynin Puntland raacin